waxaanu wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamij gaar oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. barnaamijkeenan waxaynu ku faaqidaynaa doorashooyinka dowladaha hoose ee gobolada dalkan Mareykanka oo ku beegan 7 bisha November. waxaa dadkaasi doorashada ka qayb qaadanaya sanadkan kamida Soomaali fara badan qaasatan gobolka Minnesota oo Soomaali aad u badani ay doorashada ka qayb qaadanayaan halka Soomaali kalena ay codeynayaan. haddaba waxaa stuudiyaha ila fadhiyo aan jeclahay barnaamijkaasi inuu ila faaqido Maxamuud Nuur Wardheere oo ah qofkii ugu horeeyay Soomaaliya gobolka Minnesota ka tartama sanadkii 2001 xilligaas uu tartamay duqa magaalada Minneapolis. Maxamuud waxa uu xilligaasi kamid ahaa 22 qof oo tartamaysay waxa uuna galay kaalinta 11aad. isaga ayaan jeclahay bal sida uu arko xilligii uu tartamayay maanta wax isbedelay iyo waliba Soomaalidan faraha badan ee tartamayso qaarkood waliba haatan ay xilal lagu doortay dalkan ka hayaan. Maxamuud ku soo dhaw barnaamijka VOA. waa dhowdahay mas'ad waa tahay marka ugu horeysa sanadkii 2001 gobolka Minnesota ayaad ka tarsantay iyadoo Soomaalidu aysan badnayn waliba iska daa inaad tarsantay dad wadankan u dhashay baad kaalimahoodii ka kormartay oo 22 qof oo tartamay kii 11aad bad noqotay. bal hadaad iga waranto xilliga adigu aad tartamaysay iyo maanta oo Soomaali badan ay tartamayso sida aad u aragto. horta aad bay u kala duwan yihiin isma barbar dhigi karo dadka Soomaalida badankooda Minnesota markaa way ku cusbaayeen dalka Mareykanka ku cusbaayeen citizen kan waqti dheer baa lagu qaataa citizen badan ma jirin dhinacyo kastana kama inaan muuqanin marka maanta dad badan baa citizen ah ilmihii ku dhashay baa hadda codeynaya oo mart citizen ah oo xilal u ordi kara waa wax lagu farxo isbedel weyn dhinac kastana waan ka muuqanaa maanta dhinaca waxbarashada gobolka rajadeeda aniga aad u fiican tahay odaybaana wax bilaabi ku faraxsan la gaaro marka inay dhalinyaro Soomaali xilalka hayaan inay maaragtaa ay dhinaca waxbarashada ganacsiga dhinac walba aan ka muuqano aad baan ugu faraxsanahay. waa gartay Maxamuud hadda 3 qof oo Soomaaliya ayaa gobolka Minnesota xilal loo doortay Ilhaan Cumar oo fadhisa Kongareeska gobolkan Cabdi Warsame oo golaha deegaanka magaalada Minneapolis iyo Siyaad Cali oo gudoonka waxbarashada ee gobolka Minnesota kamida dabcan dhamaantoodna inta loo codeeyay ay cod ku soo baxeen qaarkood waliba Ilhaan Cumar oo kale meesha codka ay heshay ka Soomaalida waxa aad uga badnaa dadkan Soomaalida ahayn ee codeeyay hadda xilligan jadweyne fara badan oo Soomaaliyeed ayaa codeynaya oo codkooda bixinaya waxaana tartamaysa ilaa iyo 9 qof oo Soomaali ah oo qaarkood ay xilal isku mid ah u tartamayaan haddaad iga waranto marka ka shakhsiyan adiga ahaan sidaad u aragtaa Soomaalidu in ay tira inta la ku tartamayaan. aniga aad baan u faraxsanahay wax fiican baan u arkaa meelo dhaliila way jiraan waana ku sheegi doon laakiin marka hore positive-ka in dadkeena ay aad uga soo baxan dhalinyaro active ah oo raba inay political civic engagement sameeyaan oo ka qayb qaataan maamulka iyo doorashooyinka dalka waa ku faraxsanahay. waxa ugu muhiimsan waxa waa inaad miiska decision-ka lagu sameynayo local level-ka iyo meesha ka sarreeya gaari kartaba inaad ka maqnaanin miiska decision-ka lagu sameynayo waa meesha maaragtaa danaha dad walba iyo gobol walba lagu qaada dhigo haddii in badan oo Soomaaliya ay miisaskaas fadhiyaan kulley markaa nalama ilaaway danaheennana waa noo dagaalamayaan. Maxamuud kuraasta ay Soomaalidu hadda u tartamayso maalan 2 kursi oo kamid ah waxaa ku tartamaysa 5 qof oo Soomaali ah oo ayagu iska soo horjeeda. haddii aan kala qaado kursi waa golaha deegaanka waxaa ku tartamaysa 2 qof oo Soomaali ah oo ah Cabdi Warsame oo kursiga ku fadhiyay Maxamuud Nuur oo la tartamaya iyo gabar Soomaaliyeed oo iyadu xisbiga Republicaanka socota oo la yiraahdo Faadumo oo iyaduna u tartamaysa kursigaasi. marka 3daasi qofood oo isu kursi u tartamaysa iyo kursi ay u tartamayaan 2 wiil oo dhalinyaro ah oo ah kursiga backboardka loo yaqaano amaba bilicda magaalada iyo garoomada iyo waxyaabaha noocaas iyaguna u tartamayaan jardiinooyinka Soomaalidu inta badan ay tiraahdaa iyaguna dabcan kursigaas bay 2daasi wiil oo dhalinyarada ku tartamayaan. halkaasi waxa suuragal noqonaysa in 2 qofood oo Soomaali ahi ay 2 kursi ku soo baxdo. arinta dadka waranto way dadaaleen dhalinyaradaas
inkastoo hadda ay daalayeen oo campaign culus ay soo galeen annaga danbaa noogu jirta the more in badan oo ay Soomaaliya soo baxaan oo ay fariistaan miisaska go'aanka lagu gaarayo danbaa noogu jirta meesha tartankoodana waan la socdaa dhexdooda inay tartamaanna dalkaana buu samaysan hadda governorka Minnesota oo aan aad u jecelnahay oo Soomaalida iyo dadka muslimka la jira governor Dayton alda meerin dagaal xisbiga dhexdiisa ka galay endorsementigii meerin hadana banaankiisu ka helay wax marka system dhulkan uu furfuran yahay qofna ma la dhihi karo laba qof saddex qof oo Soomaali ama wada tartami kartaan system kala reebayo iyadoo aan qori la isu qaadanin baa jira laakiin meesha ka digayo oo ay dhibaysan ku sheegay oday waayeel siyaasadda Mareykanka muddo ku soo jiray waxaan ka xumahay in goobaha doorashada Soomaaliya gacan isula tagto taas waa tan ceebta way dhacday dhowr goor ay dhacday way soo noqotay goobaha caucuska haday tahay iyo doorashada qaybta hore iyo qaybta dambe meesha ceebta nooga imaanaysa waa halkaas oo hadda ilaana la yiraahdo maarata warlords nimadii bay keeneen maarata dadka qofka u codeynaysa in la ogaado ma fiicna community-ga cidkay u codeysaa xoogta xataa in la wada ogaado ma fiicna one of the reason oo waxaas keenayna waxa waaye haddii aad fowdada iyo dagaalka wixii ka dhigto sida ay dadka kaleba ku wadaan bahasha banooniga hala dejiyo doorashada iyadoo la kala fikrad yahay oo nin walba uu qofku rabo u codeynayo laakiin waa ceeb in feer iyo faralaab ka dhacda dadkii kale dhanka ma dhacda gaarkeen goobaha la isku dagaalo feer iyo faralaab ka dhacdo waa deegaanada ay Soomaalida ku badan tahay taa hadda waa ka soo horjeedaa dabcan wixii Britain ka dambeeya oo waa lagu kala baxaya doorashada xafiisyadaasna dad fara badan oo Soomaaliya ama heli doona qaarkood laba kursi waaba la hubaabay inay heli doonaan kuwa kalena ama way ku soo bixi doonaan ama sidoo kale way weyn doonaan dadka la doorto oo waliba kuraastan kuleelka faraha badan uu ka socdo u tartamaya kii soo baxaba marka guusha ay helaan talada u jeedin lahayd si ummadan hadda colaada isku haysay kala irdhoobaysa aad u malaynayso inay mataqaana xaaladoodu ay jahawareersan tahay maxaad kula talinaysaa qofkii soo baxay inuu qaado talada horta talada intaan u gudbinin wax yar taariikh wax baa laga bartaa magaalada Minnesota aan deganaa inkastoo ay liberal tahay laakiin 1971 ninkii ugu horeeyay oo madow oo doorasho carro waxa la dhihi jiray W Harris Davis waxaan aan nimcadan hadda haysano inaan doorasho oran ilaa aan gaarnay state legislative oo ilhaan meesha ay noo joogto kala hadda dad baa u soo daban dhiig u soo cabay waxaan oo Afrika immigrantga dhan waa inay dadka madow la ogaado waay ninkaas W Harris Davis loo hayay wixii inuu Soomaalida Minnesota history barato ninkaas markuu isu soo taagay doorashada Mareykanka dadka cadaanka oo Minneapolis Minnesota way diideen waxay yiraahdeen sheedin madow nooga waa hadda dhow 1971 oo dad badan way yaryar yihiin waan ogaa wala fogtay wali aniga kamid ah waa waxbaan la socdaa marka 1971 ninka la diiday waxa samarkii oo dhan ilaa electionka uu ka dhamaado FBI iyo federal government baa ilaalinaysa ninka waxba uma galabsan ninkaas gurigiisa la ilaalinayay dawladii baa soo degtay dibkaas loo soo maray waxaan horta waa wax muhiim ah doorashadii muu helin Minneapolis mayor oo carray laakiin wuu ku faraxsanaayo 20 sano kadib gabadhii ugu horeysay African American Minneapolis mayor ka soo noqotay gabadhiina asaga oo ahaa inspirational marka waxa waaye fursadan ay haysano waa qaali inaan fahmno taladan u soo jeedinayna nimanka dadka ku soo baxo doorashada waa safiiro waa dad danaha Soomaalida maarta xirkooda uu saaran yahay dartooda Soomaalida iyadoo loo socda ayaga naftooda aan imaan helin dagaalkii Soomaaliya ku socda ayagana uu ku socda soo markaana I think dhalinyarada waana aadna ugu qarax inay fahamsan yihiin dagaalkii campaign inay ilaabaan way wixii inta campaign-ka uu socday xagxagashadii iyo lagdintii inay ilaawaan waa inay dadka dhan si cadaalad ah ugu shaqeeyaan waa inay maaragta bilaabaan dadka sidii ay isugu soo dhaweyn lahaayeen aad baad u mahadsantahay waa mahadnaqa badan waa tahay daawadayaal kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur Wadheere oo qofkii ugu horeeyay Soomaaliya gobolka Minnesota kursi u tartama isagoo sanadkii 2001 u tartamay duqa magaalada Minneapolis isla markaasina 22 qof oo tartantay kaalinta 11aad ka galay Maxamuud ayaa stuudiyaha ila joogay oo la falanqeynayay doorashada 7 November ka dhacaysa dalka Mareykanka qaasatan tan reer Minnesota oo Soomaali fara badan ay ka qayb qaadanayso waliba xeer kala duwan u tartamayaan waxaynu arki doonaa Soomaalida soo baxday waliba
kuraasta ay ku guulaystaan inagoo haddii eebba idmo idinla wadaagi doogna tan ay kula nabadaawadayaal waa maxamuud mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo